بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يقول كهلا ودياش دقودي مقعود وحان لهاليا وحان كحماني حوجها يعني دليلنا واتيا قال دتك جوجا وجير خصوصا بس مربنا هذا كينان إن الريدو إنه حره وأودي دقودي ومتقنا ملح دقودي نمان أسرعهم وملح مجرى دقودي إن ده دقودي واي إن ده نريدين حدا تير عرس أنا وديار منهم وحاعد سنينا عدانا وديش دقودي أنا كله ما قاعد دقودي إن هذا كينان وهلي للسوء عليه على الرزين عن ورك أشتى أتكلم قطي نك أودي السوء عليه سنة عد سنينا حتى أنا أودي الجرس anigoo ka mid ah odayaasha dugooda ee Regarsa arrin aan ka xumaanay ayaa bariyahanba media dhex wareeganaysa arrinta waxa waaye aadan kaynaan wehliye ya macaaradkiisu u batay wax oo bil aadan ah oo maanta magaca dugoodi marka la yiraahdo koow hadara laba waasaga ama waaba koow ninka asaga waxaan rabnaa waa nin doorna waxa waaye cadawgiisa iska badan waa libaax waan anaga hadin aan Regarsa dugoodihi Regarsa ninkan ku faanna waay waxaan rabnaa dugoodihi eldaas iyo macal dugoodihi wajeer inay arinta ay qalqaaliyeen oo kaynaan lagu ridaaya laga taransuulo kaynaana madaxda lagu soo celiyo. Mimi naitwa Hassan Ado Mahmud, naongea kwa niaba ya wazee wa Garissa hapa wa Dogoria. Naomba watu wa Eldas na Wajia kwa jumla warudishe na wajague Adan Kainan. Adan Kainan ana maono, anajua kuongoza, anasikizwa huko juu na rais, nasikizwa na mkubwa ya chama ya ODM Raila Omolo Odinga, na sisi ni wafasi wake. Tunatambua, we recognize him as our leader. Hatuwezi kuita MP, tulita mfalme ya Dogodia. Wale wanakaa Eldas wakikataa, wako wa Dogodia wengi sana. Hatutaki msichana kidogo ambaye hatujui kama atakuwa tasa ama atasaa, lakini huyu tumejua maono yake na kazi yake na maendeleo yake, na anafanya watu mzuri na anabatia watu, anaajiri wa vijana wengi sana, na sahihi akipata au tukimrudisha tutakuwa laini ya mbele. Asanteni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aniga magacayga Aadan Bile Xasan waxaan ka mid ahay odayaasha Regarsa waxaan baaq u dirayaa walaalkeen maxashimiwa Aadan Kaynaan inuu noo yimaado Garissa oo la fariisano oo wada hadalno oo wixii danaha adduunyada aan isu sheegno oo wixii annaga marka dhibkaayna aan u sheegno asagaas ayaan u baahanahay walaalkeen sidoo noogu imaan lahaa oo u dhow oo degdeg ah ayaan u baahanahay ha noo imaado hadduu codkaayna maqlo ama uu arko waxaan leenahay walaalow Garissa noo imaaw insha Allah. الدنيا تلا مالك تلوين واسكجرا تلوين كان معناها كميدنا هاي مركو حنقولين هاي نو إمو أو نلفريسو عندنا هاي أودياشي Regarsa. يا قريب تدي يا عاوز وين بين